السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم walaalyaal ma ila imaqlaa. السلام عليكم. see layahay waa walaashin roodo. السلام عليكم ما ila imaqlaa. fadlan haa igu soo qor haddaa imaqashaan. sheekh seeta baayo, I hope inaad fiican tahay meel walbaa joogtiin. maasha allah. fadlan haddii aad awoodaan dadka ku soo casuuma programkan. marka kood horta waxaan rabaa inaan dhaho inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. ilaahay ha u naxariisto dadkii soomaaliyeed oo ku dhammaaday muqdisho, ku dhintay ex control iyagoo mataqaanaa noloshooda nolol maalmoodkooda raadsanayo, subxi soo kaceen u kalaheen siday mataqaanaa ay usoo noloshooda ay u xalisa lahaayeen oo mataqaanaa u baxeen. waa sidaan ognahnay, waxaa la sheegaya tirada ilaa 200 qof inay gaartay. caruur ay ugu badnaayeen, dhalinyaro. marka storiedan waxa waaye weli si fiican usoo bixin oo weli waxaa jiro dadkii qaar badan oo la doogina jiraan. marka waana very devastating wallahi. waxa waaye qof islaamnimo ku jirto oo bini aadanimo ku jirto uu mataqaana aada uga xumaanayo. marka waxaan rabay inaan tacsi iyo baaq ummadda soomaaliyeed aan uga diro meeshan. horta markay dhimasho imaato waxaan soo xasuusanay waxa waaye it's time for reflection. ya waqtiga waxa waaye qofka muslimka ah uu ka fikirayo dhimashada maxay tahay, and it's also waa xasuus annakana la xasuusinayo dadkeena nool in adduunyadan ay tahay meel kusii meel gaar ah oonan la waareynin. marka waana ognaha tacsida way kala xanuun badan tahay markaa qofka taqaanid iyo markaa qofka aqoonin. laakiin maadaama qof islaam tahay waa inaan marka hore ogaataa qofka kaloo muslimka ah xaquuq muxuu kugu leeyahay adiga. qofka muslimka kale xaquuq wuxuu kugu leeyahay markuu xanuunsado inaad mataqaanaa aad soo booqatid oo mataqaanaa ka warhaysid qofka islaamka ah. wuxuu kaloo xaquuq kugu leeyahay markuu dhinto inaad mataqaanaa qofka aad janaasana ku dukatid, ilaahayna u barisid. marka waxaan ilaahay mar walba aan ka baryayaa inuu naga dhigo ummad dhaqan iyo waxyaabo xunxun aan soo baranay intay meel iska dhigto diinta ilaahay oo quruxda badan siday tahay aan ku dhaqanno. walaalayaal taas haddaan meesha ugu gudbo tacsida, waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed aan xasuusiyo dagaalkii soomaaliya ka dhacay almost 30 sano ka hor. wuxuu ahaa dagaal nagu dhaafay, waa dadkeena soo gaareen ama waagaas soomaaliya joogeen, xitaa kuwii aanan waqtigaas joogin. waxaa ka dhumay, they've lost loved ones, they've lost maxaa la dhahaa qaraabadoodii, gurigoodiyaa baaba'ay wadankaas waqtigaas. marka waxaan rabaa ummadda inaan xasuusiyo legacygii oo Soomaali civil warka uu dhaafay. waxa waaye legacy ah in waa xanuun, waa trauma, waa pain, waa devastation. wuxuu kaloo nagu dhaafay suspicion for each other. maxaa yeelay waa ognahnay dadka bini aadanka haddii dembi ay kala galaan waxay u baahan yihiin waqti ay isku cafiyaan iyo dib u heshiisiisay u baahan yihiin. ummadda soomaaliyeedna opportunitygaas lama siinin.
dowladda hadda jirto iyo dowladihii soo maray oo dhan since the civil war waxay ahaayeen dowlado tabaro yaryar waa wada ognahnay. laakiin aniga waxay ila tahay focuska in la saaro inay ahayd dib u heshiisiin. maxaa yeelay ummadda haddaysan iscafinin, aysan accountability laisku sameynin, oo dadkii mataqaanaa civil warka ka mid ahaa qabiilkii doonaanba u dhashtaane haddii mataqaanaa inta lasoo qaqabto aanan la xirin, oo xitaa iyagoo la xirin mataqaanaa ummadda la hor keeno oo la dhaho u apologize gareeya, ummadda raaligeliya, ummadda cafis weydiista, ummaddana inaad dembi ka gasheen u sheega. markaas ummadda waxa waaye way qaboobaysaa, qalbadooda way qaboobaysaa, oo waxaa dhacaayo waxaa bilaabanayso iscafis, iyo waxaa bilaabanayso isku damqasho, iyo waxaa bilaabanaysa healing. ma fahamte? laakiin hadda what we have left with is waxa maanta na hor yaalo waxa waaye xanuun. mar walbana xanuunkaas waxa waaye kulligeen boogaa nagu wada taalo, ya boogaa nagu wada taalo. boogtaasna waxay damqataa markii uu arrin ay dhacdo publicly. hadda arrintii waa ognahna BK, I don't want to go into it because I don't want to give him maxaa la dhahaa platformkayga inaan aan sharaftaas siiyo ma aha. maxaa yeelay BK uma hadla Somaliland, and he's not the only Somalilander. waa millions oo Somalilanders jiraan oo walaalo Soomaaliyeed jecel oo la damqaday oo soo baroor diiqay. arrintii beledweyne waan ogeyn, dadka Soomaali waa dad isla dhashay isdhaleen. ma fahamteen? marka waxa waaye laakiin aniga mar walba waxaan fiirsadaa reactionka dadkeena dhinac walba ha joogaan, ama Muqdisho ha joogaan, ama Hargeysa ha joogaan, ama Puntland ha joogaan. markii dad public platformka haystaan ay wax xun ay dhahaan, qaarna way support gareynaan, qaarna way kasoo horjeedaan. kuwa qabiilkiisa waa support gareynaan, kuwa qabiilada kale u dhashteen kasoo horgeynaan. markii laga reebo in yar oo Ilaahay ka cabsanayso, oo shaqadii cafiska ahaay samaysay, oo mataqaanaa naftooda ku dadaashay, oo dhaqankii iyo maxaa la qabyaaladii xumayd iyo waxyaabihii toxiga nala soo baray, oo mataqaanaa naftooda responsibility u qaateen oo iska dhaafeen. marka walaalayaal waxa waaye ummadda marka waxaa aniga aan rabaa inaan noqdo qofka ugu horeeyay oo arrinta gadaal geeyo. maxaa yeelay dadkii xamar ku dhinteen 2 days ago iyo dadkii 1989 Hargeysa ku dhinteen waa the same people. waa human life. waxa waa naf oo Ilaahay karaameeyey ayaa inta la baxay ayaa diyaarado lagu qarxiyey. waxaan kaloo u tacsiyeynaa dadkii dowladda waagay jirtay gobolada dhexe inta loogu tago la baabi'inayay, oo inta la dilayay, oo ceelo lagu shubayay. waxyaabo waxaa Soomaaliya waxaa soo barta taariikhdeeda a lot of ethnic cleansing soo mareen, oo waqtiyo kala duwan ay ahayd. ama dad yar ha lagu sameeyo, ama nambarada ha kala badnaadaan. mas-uuliyadaasna mar walba waxaa qaadanayso dowladdii markaas jirtay. mas-uuliyadaas waxaa qaadanayso dowladdii markaas jirtay. laakiin in la iloobo ma aha. dowladdii markaas jirtay qabiil walbay lahayd, hawiye lahayd, daaroode lahayd, isaaqay lahayd, waxay lahayd raxweyne lahayd, waxay lahayd dad maxaa la dhahaa reer xamar nooc walbaa ku jira. ma fahamtay? marka waxa waaye accountability in la sameeyo waayo. hadda waxaa jiro dad jiraan 30 sano iyo 20 sano iyo oo weligood aan Soomaali aan arkin, laakiin dhibkii dhacay ayeeyadood ama hooyadood ama cousinkooda ama qofkii markaas caregiverkooda u sheegay. marka ilmahaas waxaa la baray story oo toxic oo mataqaanaa run ku salaysneen, oo mataqaanaa hate iyo mataqaanaa iyo anger iyo victimization kaliya u keenayso ayaa ilmahaas la baray. ya marka ilmaha iyaga sii dhaleen marka maxay barayaan? the same thing ay barayaan. marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaan mataqaana isku tacsiyeyno, inaan isku naxno. qofka Hargeysa ku dhintay 30 years ago iyo qofka Shaal Xamar ku dhintay waa the same people. dadkii mataqaanaa Muqdisho laga kaxiyey markii dowladda ay dhacday
oo mataqaanaa badaha ku dhamaadeen oo gobolada mataqaanaa bahalada ku cuneen oo jidad ku dhamaadeen oo qax ku dhamaadeen waa the same people. dadka maalin walba soo baxayaan oo Mediterranean-ka ilaa hadda ku dhamaana waa the same people waay. dadka jareer iyo madhibaan loogu waco oo waxa waaye oo la baabi'iyo oo maalin walba la yaso oo opportunity aan la sameynin waa the same human life waay. kalama qiimo badna kalamahe qiimo badna. marka ma dhihi karno anaka dadkeenana qiimeena la leeyihiin qofka kalena uma naxay because that's islaamnimana ma aha bini'aadanimana ma aha. marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu tacsiyeeyo dhibkii soo gaaray ilaa 30 sano ka hor. waxaana idinka codsanayaa walaalayaal inaad is-cafisaan because ilaahay wuxuu inoo sheegay wuxuu yiri is-cafiye aan idin cafiye isku naxariista aan isku naxariista ya. dhimashadan waa inay naxasuusisaa ma noolaaneeno. none of us are going to live. maanta we don't know goortan dhimanayn iyo meeshan ku dhimanayno. marka Soomaali waxay dhahaan waari meyside war ha ka haro waari meyside war ha ka haro. marka the other point I want to make is walaalayaal Rwandeska sida isku dileen isku baabi'een Soomaali isku dileen. dagaalkane qabiilka ma bilaaban wuxuu ka bilowday jabhad iyo wuxuu ka bilowday iyo maxaa la dhahaa dawlad. markii dambe waxay isku bedeshay qabiil oo mataqaanaa si hoose ah. ma fahamtay? marka Soomaali waxa la dhihi karaa directly qabiil isku ma dagaalin. intee laba qabiil isku soo waagi hore isku dagaali jireen laakiin laba qabiilna si toos isku soo duushay civil war ma ahayn. dawlad iyo jabhad iyo dadkeeda oo different layers ah. aniga waagaas waa yaray expert mihi waxa loo baahan yahay dadka joogeen oo historyga qoreen iyagoo mataqaanaa bias ahayn inay dadka yar yar uga sheekeeyaan ay uga sheekeeyaan dadkii heroes ka ahaay oo mataqaanaa different sides ka joogeen oo dawladda ka soo horjeesto dheen annaka dadkeena diyaarad ma ku kicinayna for example oo kale. dadkii mataqaanaa jabhadda aan gelin dadkii mataqaanaa weligood aanan maxaa la dhahaa dhibaato aanan sameynin. waa inaan we need to celebrate those people. inaan dadkeena barno dad wadaniyaal ah oo isku damqanayo oo wanaagsan inay nagu dhex jiraan. waa inaan barno inaan victim kaliya iska dhigna maaha oo mar walba aan mataqaanaa ilmaheena hayd iyo dhibaato iyo ciil aan barno. kulligeen dhibaatana soo wada gaartay. aniga hadda roodo ah New Year markii la gaaro I feel very uncomfortable wallahi. maxaa yeelay waa aragteen New Year celebration-ka iyo mararka kale waxaa la deynayaa maxaa la dhahaa fireworks kia la sameynayaa fireworks markii la sameeyo waxa waa bugti iyo bacdiya maqleysa. it affects way ku affect garaynay adigoo og inaysan dagaal iyo dhibaato ay jirin. bal dadka hadda waxaas dhex jooga ka waran oo maalin walba markay iskool aadayeen ama waxay aadayeen ka cabsanay bambo in lagu qarxiyo. xamar waa tagaani it's very unsettling feeling. wallahi waa wax aad markano qofkii dagaal soo arkay qalbadiisa ma degana. marka walaalayaal wallahi it's been long enough. ani marka waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed baaq u sameeyo aan dhaho walaalayaal dadka xun yeesana afduubin dadkeena wanaagsan. Soomaalida waxaan dhigi karaa boqolkiiba let's say 70 qoryo maysan qaadanin. dad ma dilin. waxay ahaayeen victims oo different times la soo kala qaxiyay oo dhulkooda laga soo qaxiyay oo wadankooda la baabi'iyay. ma fahamtay? marka waxaa loo baahan yahay in aan healing iyo reconciliation aan bilowno. in aan is-cafino. in aan kala duwanaanshaheena diversitygeena inaan celebration ku sameyno. ya marka waxaa loo baahan yahay dawladaha ka jiro dawlad goboleedyada dhan inay qarash geliyaan sidii ay mataqaanaa reconciliation programs loo sameyn lahaa ama Puntland ha ahaato
ama Soomaaliland dhexdeeda ha ahaato ama mataqaanaa maxaa la dhahaa gobolada dhexe ha ahaadaan meesha doonta ha ahaato in reconciliation laga shaqeeyo in dhalinyarada futboolo loo sameeyo dadkeenaan Europe joogo iyo mataqaanaa America iyo Canada iyo meelahaas waxaa loo baahan yahay especially dadka mataqaanaa in public platformka ay haystaan maalin walba inay ka hadlaan is-afis iyo isku tanaasul iyo iska naxitaan iyo iswalaalasho and maxaa la dhahaa the other point that I want to make waxa waaye qofka bini'aadanka wuxuu noqon karaa wadani and there's nothing wrong with that. You can love wadankaaga and you should love wadankaaga. You should love aabahay hooyada meesha ka imaadeen. You should love meesha degantahay. You should love qabiilkaaga. laakiin walaalayaal jaceelka ma aha qof kalaan baabi'ina. jaceelka ma aha qof kalan ku digana. jaceelka ma aha maalin walba Facebook intaan soo istaago aan waxaan noqonaynaa team maxay ahayd labadii gabdhood oo ninka isku dagaaleen and hodan iyo gabadhi kale. That's not jacayl qabiilkaaga ma aha. qabiilkaaga waa inaad jeclaata aad dhahdaa okay ma jeclaha okay inaan baxo aan magaalada degayin tuulada degayin meesha ugu yar ee dadkaaga ay degayin inaa iskoolka furtid inaa ceelka furtid inaa samarka mataqaanaa ilaahay cilmigu ku siiyey inaa mataqaanaa si maxaa la dhahaa voluntary ah inaad cilmigaaga u bartid ya comfortkaaga aad ka tagtid mataqaanaa aad wax wanaag ah wadankii aad geystay. That is love. That is patriotism. ma aha dadaan dhibaatadaan caynaa dadaan maanta dhan ka daba taagana dadaan lahjadooda ku caynaya dadaan qabiilkooda ku caynaya dadaan mataqaanaa dhaqankooda ku caynaya ma aha walaalayaal. Diversity is actually one of the miracles of Ilaahay na siiyey. Imagine if we were all the same. Life would be very boring. haddaa kulligeed isku si aan ahaan lahayn nolosha wallahi boring ay noqonaysaa. annaka hadda waxaan la deganahay dad nooc walba aan la deganahay oo muslim iyo gaal iyo kuwan diin haysanin iyo nooc walba leh. 4 corners of the world London waa la joogaa. dadkaasaan la shaqeynaa oo wax la qaybsanaa oo space la qaybsanaa transport la qaybsanaa oo aan xushmeynaa oo mataqaanaa ciidahooda u hambalyeynaa oo markay mataqaanaa dhibaato ku dhacdo aan u soo tacsiyeynaa aan wanaajinaa aan friendskeena maxaa noo diiday marka annakoo Soomaali isku dadkii isdhaleen abtii adeer isku inaan sameyno. walaalayaal dadka elite oo mataqaanaa ama dawladda ku jiro ama business ha lahaado ama si kale lacag ha u lahaado iyaga saaxiibo iyaga ilmahooda dibadda isa joogaan ay best universities and best schools iskula dhigtaan. marka dadka waxa dhaawaca soo gaarayo oo dhibaatada soo gaarayo it's you and I. marka waxaa la rabaa waxa dhibaatooyinka destructive oo na baabi'ina inaan joojinaan ka harno because waan daalnay. you know hatredka waxa waa like acid waay ya naceebka wuxuu la mid yahay aashitada. maanta aashitada korkaada ku daadisid maxaa dhacayo way gudbaysaa skinka layerskay gudbaysaa flashkay u tagaysaa hilibkay u tagaysaa ilaa waxay gaaraysaa laftaada. hatekana waa saas marka isdhahdid oo qofkaas waa madow kale waxaan dhahayaa jareeran dhahaa ama qofkaas waa Somalilander waa cayna ama qofkaas waa qabiil hebelo waa daarood ama hawiye ama maxaa la dhahaa ii sheeg ama waa raxaweyn lahjadiisan ku caynaya. haterkaas waxa waa u soo socdo waxa arkaysa your own cousins adigoo neceb. waana ognahnay ani hadda dadkii igu dhow maaha dadka qabiilkayga waa Soomaali afartooda corner dadka imaadeen my to go to my people maanta dhibaatada igu dhacda aan tagaayo aan ila ooyna anigan aan la ooynayo. dadkii igu dhawaa waxaan dhihi karaa mar qaarkood they might be my enemies. ma fahamtay? marka walaalayaal waxa waaye dadka islaamka kalama qiimo badna ya in the eyes of Allah waxa qiimo u kala badannahay waxa waaye taqwadeena waaye.
والله ما أنت مقولها إساقة قفكس كقيمة بدن أو مهوية قفكس كقيمة بدن أما دارودة قفكس كقيمة بدن أما متقنا قف متجانها قفكس كقيمة بدن أما محل لها إن أما محل لها رحوين أما سان we all equal in the eyes of Allah والله we are ما فهمتين اسكم إذا نهاي كلية وحوا بري وحا كراعي ومركا لمتد can you imagine the love you have for your children waa ka tagaysaa iyagana adiga u jeedida godkas lagaa gelinaa dadka ugu jeclaada ka tagaysaa laralon in adeerkay walaalayaal in adeer waxa waaye waxa nafteena taraq iyo gaas oo nagu daara waaye in adeerkan horta yaa maalixaas waxaan kusoo qoray cadowga Soomaaliya yaa waaye cadowga Soomaaliya qabiil waaye qabiilka markuu u yahay maalin walba ninka in adeerka I don't mind dadka wanaagsan aan lacag loo aruuriyo wili ma arkin la dhaay wallahi billahi wiilkaana ugu cleversan qabiilkeena aan lacag u aruurin aan ka dhiima jaamacad ma arkin la dhaay gabadhaana ugu ama laba qof oo mataqaana in dhalinyaro ash jeclaata oo maanta guri wanaag u dhisayna lacag u aruurinayna qaaraan guri ugu dhisayna ama hooyadan single-ka oo nin u joogina caruurteeda ka jiran yihiin waa in adeertay lacag u soo aruurino aan siino always lacagta waxa loo aruuriyaa tuuga caruur kufsadaha qayaanoolaha warlordka kan ugu dhibka badan familiga iyo qabiilka loo aruuriyaa oo always nin lacagtan waxa laga qaadaa haweenka laga aruuriyaa marka goorma systemkaas walaasheedii ka daba hareysa maxaa yeelaysa ugu daba jirtay wuxuu ka soo qixi dhulkaagi wuxuu ka soo qixi gurigaagi ilmahaagi wuxuu ku rid aaba la'aan wuxuu ku keenay Europe iyo America iyo mataqaana iyo qaxootinimo haddana waa wixii dabada ka dawada Soomaaliyeed waa ogtahay maanta markii nala weydiiyo maybe community-da ku ugu dacdareysan aan ku jirno ugu dhibaato badan ya wiilasheen waa aragtay waxay ku dhamaadeen maxaa la dhahaa drug dealers iyo ismindiyeen especially in London aabayaashu waxay ku dhamaadeen naagyasitaan iyo meelka orid maxaa la dhahaa politics iyo waxba aan loo joogin walaalayaal we have to stop enough is enough hatred maanta gabar walaasha ama wiil walaalka oo magaalo kala jooga caysay Ilaahay is not going to elevate you Ilaahay is not going to give you barwaaqo iyo bashbash Ilaahay is not going to lift you up Ilaahay is not war fiir waqtigaaga dhanaaba hatred ku dhameysay goorma wax wanaagsan samaysane goorma cilmi barane goorma ilmahaaga dhax fadhine goorma wanaag barane goorma mataqana Ilaahay u mataqana cibaadaysane because maanta dhan waxa ku dhex jirta hatred does not work for anyone it hasn't worked for anyone history gadaal u fiiri ya marka Rwanda haday ka soo kabsan karto ethnic cleansing ya anaka waa ka soo kabsan karnaa waan is afin karnaa waa Israailiyeen karnaa waan isku nixi karnaa waxa loo baahan yahay NGO-yada masaajidiyada maxaa la dhahaa all the government institutions maxaa la dhahaa iskoolaadka jaamacayaasha inay maalin walba ay bishi hal mar xitaa ay qabtaan some sort of a program or reconciliation ummadda u samaynayo oo qabiilka dadka ka tuurayo yeah one of the things I really respect and qof perfect adduunyada ma jirto Ilaahay u naxariiste madaxweynihii hore Soomaaliya wuxuu ahaa qof mar walba qabiilka la dagaalamo qabyaalada quran waa dhig jir hal iska dhaafo there's some truth to that yeah I don't know markii dambe isaga naftirkiisa qabyaaladii dadka la shaqeynay lafaha inay ka gashay oo waxyaabihii Soomaaliya baabiyi waxyaabaas ay kamid tahay ma fahamtay marka waxaan ka wadnaa wax wanaagsan aan qaadano wax xun aan ka tagno wax wanaagsan aan qaadano wax xun aan ka tagno marka 2020 ma ka dhigi karnaa oo challenge kuma raxa samaysan challenge kii maxaa la dhahaa ii sheeg heesta Djiboutiyaanka challenge-ga oo saan la isku ridaayay so many challenges are samaysan can we come up with a challenge and a hashtag 2020 waa time key let's make Somalia heal ma fahamtay yeah waxa waaye
waqtigii iscafinta ma ka dhigi karnaa Marya Sheekh, Raxmo, Zamzam, Hani Uma Salma kulligiin waa idin salaamaya walaalayaal leaderska dhan meeshan ku wada jiraan wadankeena maxaa la dhahaa walaalayaal can we start hashtag ma samayn karnaa hashtag qabiil gadaal inaan ilmaheena barno universityada wallahi markaa tagtid waxaa arkaysaa every society jirto okay Somali society-ga waxay kala leeyihiin Somaliland, Puntland, Hebelowland, Kanland aniga waa yaabay ilmaheena uma baahna negativitygaas uma baahna because already they face discrimination islaamnimo lagu discriminate gareeya they already face maxaa la dhahaa madownimo we think madow manihim but that's another topic altogether ma fahamteen laakiin marka waxa waay walaalayaal can we stop with this rubbish wallahi billahi qabyaalada waxa waay waxana baabiye waay can we say hashtag no qabiil walaashi raxmo ku soo qortay can we say it's time to heal yeah healing ma samayn karnaa ma isdaaweyn karnaa ma ka fikiri karnaa inaan aan mataqaanaa waxyaabihii toxic ahay can we start love can we start jaceyl iyo walaaltinimo iyo mataqaanaa shout out aniga dadka noloshayda waqtiyada igu adkeed i caawiye wallahi inaysan ahayn waqti dad qabiilkayga ah ilaahay wajigiisaan ku dhaartay nad xitaa ilma adeerayaashay ilma abtiyaashay waxay ahaayeen dad oo qabiilka Soomaalida cornerkooda kala degan waan is ogyihiin and I love them dearly like my family actually ka jecelahay family do you know what I mean marka waxaan iga wadaa walaalayaa can we leave this behind can I urge you can I plead with you ani gabadhayda 13 ay jirta curadayda wallahi inaysan way maqashay qabiilkeed tahay way weydismaan xilad hooyo qabiilkaas ma ahay waxaan ku iri I'm not interested in qabiilkaaga because they haven't done nothing for her or for me hooyo is so raise grace ani hooyo inta ay soo leekaatay anigina gabadheeda I'm raising her waxba let's be honest Soomaaliye adeerada xitaa xoo muutarin and I'm not saying this to shame them like we don't even have a relationship that is the reality in our homes hatta kazanyaashaada adiga friendship wanaagsan ma la leedahay oo maanta dee dhib kugu dhaca ma kusoo intay kusoo saftaan lacag iyo wax walba iyo moral support ma ku siiyaan they don't rift iyo waxaa naga wada buuxa hate waa hate-ka xagga ka soo bilaawdo waay wuu ku imaanaa gurigaagu soo galaa ninkaagu ku dhacaa caruurtaada ku dhacaa darisku ku dhacaya adiga kugu dhacaya waxaa qaadaysaa mental illnesses qaadaysaa hate-ka iyo wallahi billah depression-ka iyo anxiety-ga iyo kulli way wada socdaan I'm no expert but you know I always try to read and understand things walaalahay igaga fiican waa inay imaadaan dadka u sheegaan xumaanay dhashaa wanaagana wuxuu dhalaa raxmad iyo khayr ya ilaahay noo sheegay nabiga alayhi salaatu wa salaam noo sheegay wuxuu dhahay qofka true muslim ma aha hadaysan wala naftooda wixii la jecelin walaalkood ee la jeclaan I'm so proud everything Somaliland achieved wallahi I cry and I celebrate with them I'm so proud everything that Puntland achieved I'm so proud waxa Jubaland achieve garayse yaa degano ku nool oo mataqaana nafcigaas helay mataqaana waa hooyo Soomaaliyeed iyo ilmaheeda sidee aniga marka hooyo Soomaaliyeed nabad ugu diidaa anigoo nabad nafteeda u rabay ilmahayga you can't islaamnimada ka soo horjeesanayso bini aadanimada ka soo horjeesanay aan walaalayaal dadkeena wanaagsan way badan yihiin laakiin we should not allow dadka xunxun inay noo hadlaan ya dadka xunxun yeysan codkeena qaadanin ilaahayna nabiga alayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay waxaana la yiri wixii xun qalbada af gacantaada ku jooji hadaadan awoodin afka ku jooji hadaadan awoodin qalbada kana and that's the weakest of faith yeah waxa xun waa inaan iska celina wallahi every time ay dhacdo issue like this waxaan la yaabaa ilmaha yaryariiska 16 15 19 20 hatredka ka buuxdo it breaks my heart it really does annaka barna ilmahaas annaka mataqaana dambi ka galoono because Somali iyaga iskala tomorrow
war hadda fiiri Somaliland nabadii haysato how many qabiila ku degan oo Soomaali oo ku nafciso oo mataqaana qayrka iyo barwaaqada iyo bashbashta ka faa'iideysato boo rabtid walaalaha. How about Puntland? How about Jubaland? How about any other place? How about Hamar? وما ربتت walaalaha وما ربتت qof walba muslim inuu wanaag iyo deganaansho iyo raxmad ku soo koro oo ku soo kaco oo ilmihiisa ku korsado oo mataqaana education iyo nolol wanaagsan oo helo. Isn't that a human need? Is it particular to one qabil? It's not, walaalayaal. Wallahi billahi tallahi dadka u malays inay ka duwan yihiin. Let's take qabil jans dhaw iga duwan yihiin dadka Chinese-ka maanta hadaa baratid on an individual level waxaad ogaanaysaa qofkaas ina more similarities ay qabtiin than differences. Wallahi walaalayaal, we have to break the barriers. dad oo mataqaana danooyin gaar ah ayaa waxay noo samaysteen barriers because it serves their personal interest. Yeah, bika inuu Somaliland ku noqdo oo dhawaaleysto xumeeyo oo red carpet loo fadiyo, it serves him. Lakin it doesn't serve Somaliland because Somaliland nabadeeda iyo wanaageeda iyo horumarka iyo wanaagga haysato dada usoo dhinteen oo usoo halgameen oo mataqaana heerka soo gaarsiiyeen. Puntland sidoo kale qofka xun marka waa in la iska qabta waana la qabteen. I'm so proud odayaal hadleen, dad waxa hadleen, famous hadleen, dad waxa all kind of people hadleen, and that's what I expect from us, especially hadaa haysatid and platform or public exactly. Zamzam, he's just one man. Exactly, I agree with you sister. Lakin waxa waaye waxa ani calool xumo iga giliyay aniga am always waxaan fiiriyaa waa ogtiin inaan campaign ka sameeyo child sexual abuse. walaalayaal ma abuse kan la dagaalamnaa, ma domestic violence la dagaalamnaa, ma gaajaan la dagaalamnaa, ma natural disasters la dagaalamnaa, ma si waxaan la dagaalamnaa individuals iyo annaka dhexdeena. meeqa dhibaataan haysata as Somali, yeah, Somali ahaan community, how many levels of pain and trauma and problem and discrimination and prejudice tan haysato. Wallahi saxankeena maxaa dhihi jiray farqeena waa buuxaa. Wallahi billah ani farqeyga waa buuxaa. Kama seexdo maalxis gabar waxay iga soo wacday in America haniisa oo xaluu kafsaday Muqdisho ilaa hadda storygeeda ma soo qorin. waa xamili la ahay. ma waxaasa la dagaalamnaa mase nin dharagtiisa u soo baxay iyo naa guursatay iyo nan kale meel kale ka dhacay iyo politician mataqaana ilmihiisa meel u saaran yihiin ayaa focuska naga dhuminayo. waa diidnay, and I'll say not in my name. ma fahamte? We are human family. We are human family. We are Somali family. waan diidnay, waa isdhalnay, waa soo wada dhalanay. daarood, hawiye, isaaq, raxweyn, maxaa la dhahaa shaanshi kulli waa isqabaan, waa isdhaleen, waa isa wada dhigteen. yaa la naca, yaa la faanina, yaa la xumayna. walaalayaal politician yaashana waa inaan la xisaabtanaa. iyaga mataqaanaa dadka masaakiimiinta oo shalay jidadka lagu dhameeyay lacagtooda iyaga qaateen, focuska iyaga inaan saarno waa annana maxaa u qabateen, maxaa safety ka soo bedesheen. laakiin dawladina ma la xisaabtami karo because qabiilka blind naga dhiga. aan hadda maanta if I speak against dawladda waxa la dhahaa dawladda waa nacabtaa because qabiilka farmaajo isku qabiil ma tihiin. It's nonsense. ani marka I stay away from politics because waxaan nahay trauma na wada haysto, qalbadeena dhaawacsan. We all need counseling, wallahi. We all need counseling. Laakiin walaalayaal, I will do my part. aniga waxaa loo baahan yahay dadkan psychology iyo psychotherapy-ga barteen inay dadka cashiro siiyaan. ay mataqaanaa how to unlearn toxic behavior na baraan. waxaan aan soo baranay oo qabiilka oo na baabi'inay, we have to unlearn it. We really have to. We really have to do better. sanad cusubaa soo socdo. marka I've written down few recommendations walaalayaal.
ilaahay human soulka wuu qiimeeyey, qur-aanka lagu sheegay ilaahay wuu karaameeyey. gaal ha aado, muslim ha aato, atheist ha, waxay rabaan ha aadaan, wuu karaameeyey. qabiilkane maalixaasaan soo dhigay, nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay tribalism, nationalism waxa waaye the downfall of humanity waaye, ka ag dheeraada. look, dad muslima isku sheegaynaa, nabigeena noo sheegay. waxaa noo keenay qof cadaan ah, divide and conquer. walaalka haddii lagu tusiyo inuu kaa bedelan yahay, kaa dheer yahay, caqligaa lagaa xadaaya, ayaanan lagaa xadin. isku dhiigaa tihiin, isku dadaa tihiin, isku dhaqanaa tihiin, isku diinaa tihiin. even xitaa kuwa isku diinta tihiin, humanity an iga dhexayso. you share space called maxaa la dhahaa planet earth ayaa niga dhexeeyo. kuwa soomaaliya joogna soomaaliya idinka dhexayso. ya noloshiina dhib ha ka dhiginaa walaalayaal. I know xanuun badanaa la soo maray. may Allah heal our hearts. walaalayaal bil aan soomaaliya u soono, walaalayaal bil aan isku duceyno, walaalayaal bil aan sameyno programs. maalulba xaafadahan taaganahnay aan sameyno reconciliation programs. inaan iskugu imaano 10 women, haddaan iskugu imaano aan ka hadalno afiska iyo healinka iyo mataqaan anigii rooda ah. waxaan rabaa wallahi qof walba oo dambi iga galay inaan afiyo. everyone because hatredka adiga ku dhaawacaysaa. forgivenesska is a healing for yourself. yeah, it's a healing for yourself. can we heal ourselves abayayaal, walaalayaal, boobayaal, baayayaal, all of you, inbayaal. miscafin karnaa oo misdaaweyn karnaa oo misraaligelin karnaa oo misku damqan karnaa. oo civil warkii ruwandaba way kasoo kabsatay, annaka ma kasoo kabsan karnaa. ya dadkeena expertska ah walaalayaal, programmo aawe. where is maxaa la dhihi jiray anti-tribalism movement groupkii aawe. walaalayaal lacag waxay ku qaadatiin inaad tribalismka ka shaqaysiin. programmo oo dhalinyarada iskugu keentiin ma barteen. jaamacadaha ma tagteen. ilmaha iskoolaadka ma kala tagteen. soomaaliya ma geyseen programmadaas. qabiil haddii laga tegin oo xanuunkan la daaweynin, soomaaliya ma horumarayso. maxaa yeelay qabaa'ilka wuxuu soo dooranayaa qofka ugu xun qabiilka, ugu xun uu dooranayaa. dadkaasaa waxay noqonaya our politicians. nin naagtiisa caruurtiisa ka nixi waaye ma adima kuu naxaya. wuu baxaa lacagtii ummaduu qaadana. walaa hargeysuu dhisaynin, walaa puntland uu dhisaynin, walaa xamar uusan dhisaynin. dad fiican way nagu jiraan, naftooda u hureen. and we're not gonna be ungrateful. ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo. laakiin dadka xun waa hal meel inaan kasoo jeesanaa. aniga ninka in adeerkay ah oo soomaaliya dambi ka gala, tiirka hala keeno. because aakhiro aniga responsible kama ihi dambigiisa. qalbada haddaan ka support garayna ilaahay anigoo tomorrow isiinaya, waan la qaybsanaya dambigiisa. are you ready for that? are you ready inaad la qaybsatid qof wax dilay? ma qabiilka heerkaas it's like we qabiilka bought our soul. nafteenaan siinay. is that how much you're willing to say? muxuu kuu qabtay? I want each and every one of you, kulligiin inta ku jiraan ku daawo doonaan, fadhiiso, buug iyo qalin soo qaado, dheh qabiilkayga muxuu igu taray. wuxuu kaa qaatay, wuxuu kugu taray, wuxuu kaa qaatay hadduu badnaado, waa ku bariya ka har. ya marka okay, patriotism iyo love for your community waa wax loo baahan yahay. haddaba sidee u noqon karnaa dad goboladeena jecel, tuulooyinkeena jecel, let's even say qabiilkeena jecel. qabiil make sure marka koowaad in markii qaaraan lagaa soo doono in lagu bixinayo arrin positive ah. qof dhintay oo lagu duugayo, qof mataqaanaa gabar maskiin oo dhalayso oo lacag la siinayo, some other disasters, natural disasters.
lacagtaada meeshii aada ogaaw ummadaha kale iyo waddankaagaba hadal wanaagsan ka sheeg oo diinta noo sheegayso wax fiican dheh ama aamus ya caruurtaada meelaha nabadda ee Soomaali kamid ee Soomaali iyo Somaliland samarkii gay ya ha soo bartaan waddankooda ha soo jeclaadaan summer projectsna ilmaaga ha sameeyaan oo dadkooda ha ugu tabarucaan aqoonta ay leeyihiin ya hadda gabaraan saaxiibana oo Soomaali waxay ka tagtay Warda waxay ka tagtay Jarmalka waxay joogtaa Somaliland haddaata video ay soo duubtaan u jeeday ilmo oo iskool volunteerly ugu tagtay waxay la gashay trampoline la dhex gashay markaas waxay tiri ilmahan weligood ma arkin qof weyn oo la dheesho oo la booboodo markaas markay qeyliyaan oo ordaan waxay leedahay waa idinka tagaa markaas oo inaan dhahay naga tagin you know that's love right there that is patriotism waa jecel waa wanaag waa maxaa la dhahaa ii sheeg wadan jecel gabadhaas waxay sameynaysaa waa wadan jecel Somaliland ay tagtay skillskeeda ma taqaana ay dadku ugu taroosaa noqo laag wardo project yaal kale oo nooc doonaan ha ahaadaan war maanta hadda cilaan taqaanid oo inta u tagtay ilmaha iskoolka kugu dhow ama ilmaha xaafad inta isku wacday kaale cilaan saaro idin bara that's positivity hal saac u sheekaysta week hal saac gurigayga u imaado ama meel iskool ama something igu imaado waxba idin bara xisaab hadaa bartid English hadaa bartid hadaa computer bartid hadaa bartid social skills self development waxay doonta ahaw dhakhtar data waxa doontid expert ku ahaw wa patriotism wa wanaag wa kalgacayl maxaa la dhahaa promote garay wadankaaga hodanna leh siday sameysay ilaahay jannada ha ka waraabiyo ya imagine qof dhan oo wadan nabad iyo nolol iyo wax walba haysatay iyo caruur jecel wadanku u qabtay waxay tagtay wadankii ay nolosheeda dhan u give up gareysay maxaa ugu mahad celinay in la qarxiyo la dilo ma ogtahay waan wada oyna maantaan ogaanay hodanna leh inay dhimatay but at the same time legacy-geeda intaan soo qaadana carro ku shuboona marka qabiil ka hadashid marka hatred iyo la bilaabo Somaliland iyo Soomaaliya iyo Qaatumaland iyo Hebelowland markii la bilaabo people like hodan ayaa legacy-geeda iyo wanaageeda iyo jaceelkeeda iyo nafteeda u hurta Soomaaliya shaqadeedii aad carro ku shubaysaa ilaahay ka cabsada dib iskula xisaabtama promote garay meelaha tourist centerska promote garay magaalooyinka meelaha oo ma taqaana la tagin tag soo ogaaw safety-geedii wanaageeda ka shaqeey mid kale xushmay respect the existence the uniqueness the rights the voices the opinions of other tribes respect their dialect respect their way of life ilaahay ummadeyda ii dhaafuu ku dhahay who the hell are you when you want to dominate qabiil kale it's absolutely disgusting waaye ummadda amaan ka helan amaan isa siiya Soomaaliya mar walba waxaan soo xustaa saadacada hadalkeedii ilaahay ha u naxariisto iyadana waxay dhahday waxay heesteedii aan ku taliyo ii talin maysid ii tali ku talin maayo aan kala tashan mayno iga tasho ka tashan maayo aan kala like what we doing like we lost our minds wallahi ummadda dhaafa isdhaafa ilaahay wuxuu ku yiri ummadeeda amaan isi Soomaaliya dadka kale noloshooda iyo waxay sameeyaan isay u dhaqmaan iyo hadaladooda iyo dhaqankooda is none of your business mind your own business xoogaaga wanaagaaga noloshaada iyo reerkaaga iyo horumarkaaga iyo waxbarashadaada alla ka cabsigaada iyo bari u shaqaysasho godkii ogeeda hoy ku lagu wadaaye gili put your effort in that yeah oh god spend time educating yourself walaalayaal yeah wa ognaanay dad qax ku soo koray dib ku soo koray opportunity badan oo waxbarasho aanan helin inaan waa ognaanay laakiin hadda thanks to technology adduunyada dhan waxa waa educationka waa free YouTube galaysa
how to paint waa lagu baraa, yeah, how to build your self-confidence waa lagu baraa, meeshuu yaala isagoo free ah. Spend your time and energy educating yourself, yeah, and especially the issues that plague your community. runta madaxa war maanta dhan BK iyo hebelo waxaas ku mashquulsantiin, ma ogtiin maalin walba ilmo Soomaali in la kufsado? What the hell are you doing about it? ma ogtiin in mataqaana ilmo gabdho inta laga dhalo masaakiimiin inay musqulaha ku dhalaan cunugi ay u tuuraan? What are we doing about that? Yeah, and I know markii hal cunug la soo saaro waxa waa dad waxa ku dhaay oh magaaladii ka dhacday. It's none of your goddamn business magaaladii ka dhacday. Just because meeshana laga soo wariyay ma aha inaysan mataqaana magaalada kale ka dhicin, ma aha macnaheeda. weydii dadka arrimaha ku jiro, i weydii meel walba Soomaali joogtay ka dhacda. Focuskeena aawe maalaxas iqriyare markaan soo saaray kufsigeedii 50,000 Somalis ayaa waxa sameeyeen viewed my page. 50,000 majority they were concerned. Ilaahay khayr siiyo, but concern kiini aawe 50,000 hada $1 aan dhiibno ama $2 aan dhiibno, 50,000 pounds ama $50,000 ay noqonaysaa. Imagine how many children we can help. Imagine how many workshops we can deliver. Imagine how many children we can save. Maxaa priority naga dhumiyay? maxaa priority naga dhumiyay? walaalayaal iscafiya. That's my other recommendation. maalin walba we hurt each other, yeah, iscafiya. dadki even your immediate family oo dambi kaa galeen iscafiya. Everyone oo ku dhibaateeyay cafi, because cafiska adigoo healing ku yahay. marka qof cafisid adigna Ilaahay wuu ku cafinaa, and in turn Ilaahay muxuu ku siinaa blessings uu ku siinaya. He will shower you with his blessings. raxmad iyo deganaansho iyo qalbi degan. walaalayaal bini aadanka qalbigu ka socdaa. iscafiya walaalayaal. cafi haddii qof lagaa dilay, cafi haddii lagu caayay, cafi haddii qabiilkaaga dhulkiisa laga barakiciyo, cafi haddii guri xoog lagaaga haysto, cafi. Ilaahay will give you better, yeah, until ay imaanayso dawlad xaq ku dhaqanto sida Rwanda camal dadku u kala xaq saarto oo heshiisay intaan ka helayno annaka samayn karno. iscafiya walaalayaal. aniga qof walba dambi iga gashay waan cafiyay si Ilaahay ani ii cafiyo. macnaha ma waan iloobay, like it means waan cafiyay so I can move on with my life. I can be in peace with myself. maskaxdayda iyo thoughtskayga will not be consumed thinking about them. waan cafiyay, yeah. mid kale walaalayaal waa ognahay kulligeen waxaan ka nimaanay toxic homes, yeah. waalidka just because waalidoo noqday ma aha inay wax walba haystaan, every tools inay haystaan, every wax walba ku soo bareen. marka as an adult you have a responsibility to yourself to unlearn wax walba oo toxic ah lagu soo baray, behavior walba oo toxic ah. ana hadda waa necbana dadka qabiilkayga, especially hadday maanta qabiil inta meel oo gathering aba qabiil isku imaado wax negative laga hadlayo madaxa qacay dhaho waa kasoo dhex baxaa. maxaa yeelay marraba aniga qalbadeyda inaan baro waxyaabaha biaska. oh qabiil hebelow saas waay, qabiil hebelow madow waay, qabiil hebelow buluug waay, qabiil hebelow. You think those are facts? They're not. They're prejudiced and biases. You have to unlearn. wax lagu soo baray waa, laakiin adiga mas'uuliyad ku saaran in wax xun oo lagu soo baray you have to unlearn it yourself, yeah. and also ilmaha inaadan barinaha walaalayaal Ilaahay ka cabsada. ilmaha ma aha marka dhashid mas'uuliyadda waalid ahaan bar sida musqusha loo tago gacmaha la iskaga dhaqo cunto loo cuno ma aha. no, ilmaha waa inaanan barin hatred, yeah. waa inaanan barin hatred. aniga ilmahayga qabiil ma yaqaanaan, and I'm so proud of that. intaan noolahayne qof Soomaali qof bini aadan ah ma yaqaanaan jareer iyo jilaac iyo hebelo ma yaqaanaan.
they don't know that. ma yaqaanaan cadaan iyo madow. waa u sheegaa as black children prejudice badan inuu ku dhacaa, laakiin waxaan ku dhaha hooyo diinta islaamka waxayna bartay in bini aadanka dhan uu yahay equal, kaliya wuxuu ku kala duwan yihiin their character, ya dabeecadooda iyo taqwadooda ku kala duwan yihiin. walaasha raxm waxay dhaha teach to be compassionate. yes, naxariista waa muhiim. I know inaan dhaqankeena ka dhigno naxariista dabaalnimo iyo weakness. No, our Prophet sallallahu alayhi wasallam, he was kind to women and children, and he stand with justice. Walaalayaal, wallahi billahi tallahi, I weep for Somalia. I weep for my people, because waxaan arkay cunug saqiir oo la kufsaday oo inahan ka wada dadanayno. ilaahay siduuna yeelaa marka nin oo tuug oo dad soo dilane caasha allah oo naxariista nimanka dil ilaa hadda xabsi ku jireen lama tooganin. caasha familigeeda waxa ay soo sheegeen in la dhahay dhoocil xun ma loo dilaa niman rag ah. ilaahay siduu umadaas u galaa, ya because dambiga kaliya maha qofka sameeyay, waa qofka qalbada ka support gareey, waa qofka lacag ku support gareey, waa qofka xaqaas aanan ustaad gareynin. kulli we in the same boat, ya umad waxaan nahnay ilmahoodii u gadaayo ilma adeer ahaan. ilma adeerkaaga ilmahaaga ka hormarinaysaa. Soomaali waxaa xasuustaa ilmaha markii dadka nimanka yimaada waxaa dhihi jiray waryaada suga maxaa la dhahaa ilmaha wax la siin nimanka cunto la horsiin jiray. walaale those things has to change. we have to stand with justice, yeah. even ilaahay wuxuu ku dhahaa suurat an-nisaa, stand with justice even if it's against yourself. midkan wuxuu dhahayaa stand with justice, garab taag, agstaag xaqa xitaa hadday waalidka ay kasoo horjeedaan. bal ka war in adeerka, ya ani waxaan magaaray conclusionka Soomaali islaamnimo ma yaqaanaan. waxaan abudnaa qabiil. if you really think about it, ilaaha qabiil noo eh. if you really think about and you analyze behavior keena, ya so midda ugu dambeeya aan dhahay waxay tahay labada ugu dambeyso, if you cannot dadka hadaadan caawin karin walaalayaal wax xun ha afkaaga ku dhaawicin, ya ka dhowrsa afkaaga. qofka muslimka dhabka ee waxa waa qofka afkiisa gacantiisa laga amaan helo. hadaadan wax u qaban karin ummadda Soomaali ku dhiban, Somaliland ku dhiban, ilmaha yarka oo loo tuurayo eeyada, ya and if you wanna maxaa la dhahaa naftiina aad rabtiin inaad runta u sheegtaan, YouTube gala kufsi ku qor, arag how many cases oo child sexual abuse soo baxo, and arag programmada loo sameeyay gabdhaha masaakiinta oo out of wedlock ama guur lagu inkiray ilmo intay dhalaa musqulaha iyo eeyada caruurta u tuuraan. arag what are we doing about that? dulmiga maxaan ka qabanoonaa? are we supporting dulmiga ama we doing something about it? we're not. we actually supporting dambiilaha, dulmilowga aan beenlowga. walaashay naciime heesteeda beenlow aan ka daba dhimanay, ma fahamteen walaalayaal? we have to do better, yeah. and nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa ahay mati true muslim haddaadan waxaa naftaada la jeceshaa walaalka aan la jecleen. taasaan aan kusoo gabagabeynaa. ilaahay ha naga dhigo mataqaana dad isku damqado, dad isku farxo, dad kala duwanaanshahooda aqbalo. diversity is a blessing. dad celebrate gareeyo kala duwanaanshahooda, dad is support gareeyo. walaalayaal adduunkan laguma waaraayo, marka waari mayside war ha kaa helo. dad abuse-ka meel ka soo istaago oo the innocent and the vulnerable garab istaago. ilmaha la kufsanayo masaakiinta ah, hooyooyinka la dilayo masaakiinta ah, dadkan la qeynxinayo, dadkan barakacayaasha, dadkan baadiyaha degano oonka u dhimanayo, dadkan biyaha kusoo fatahaaday. walaalayaal dadkaasa enerjigeen u baahan, hadalkeen u baahan, ducadeena u baahan, jaceylkeen u baahan,
dadkaas aan garab istaagno annakana aan iscafino. I love each and every one of you. dadka iyaqaanaan iyaqaana aniga one of my closest friends every qabiil waaye waa isaaq waa hawiye waa daarood waa raxweyn waa ajnabi waa muslim waa waxaan ku dhahaa ani I'm a global citizen walaalayaal. There's so much love and diversity and maxaa la dhahaa and blessings ilaahayna siiyey. Soomaaliya iyo qabiilada tirada badanna waa is part of the blessing, but we have to use it in a very positive way. Markaad isku imaataan dhulkiina dhista, isbitaallo dhista, magaalooyinkiina dhista, caruurta xafita, haweenkiina u damqada, ma fahamtiin? laakiin nacaabka naga joojiye waa idin baryeena aniga rooda ahaan I cannot take it. Look how many nacaab I face. I'm a black woman. Some of you are Arab like aniga black ahay, and waxaan ahay Afrikaan. There's a stigma attached to that. I'm a female. There's stigma attached to that. I'm Muslim. haddana walaalahay Soomaalida ma la dagaalama. No. Energygaas ma hayo. Idinkana I hope inaadan haynin. I want us to come together and I want us to do better. I want us to celebrate dadkii wadamadeena u dhinteen. I want us to remind ninkii maxaa la dhahaa magaciisa hadda iga maqan ilaahay ajra siiye oo Hargeysa diyaaradda ka soo celiyay. I want us inaan u tacsiyeyna dadkii ku dhintay waagaas. I want us dadkii xamar laga qaxiyay oo mataqaanaa badaha ku dhamaadeen oo la barakiciyay, including myself and my family. inaan soo xasuusano oo u tacsiyeyno oo xanuunkooda la qaadano. It might have been almost 30 years ago, but that pain is still alive. I'm so sorry. qofkii dhintay, qofkii walaalkiis lagu hordilay, qofkii hooyiis iyo walaashiis lagu kor xoogay, dadkii reer xamarka ah gabdhooda guryaha laga baxsaday, dadkii abgaali habargida isku baabi'iyay, dadkii isaaq iyo maxaa la dhahaa hawiye daaro isku dilay, dadkii mataqaanaa Malaysia iyo mataqaanaa Hargeysa dhib ka kiciyay, dadkii dawladda ku jireen oo Hargeysa baabi'iyeen. All that was pain and suffering. Why? Dad Soomaaliyan ku dhaceen. Rooda ahaan I want to say I'm so sorry. Ilaahay samri iimaan Allah idinka siiyo. Wixii dhintay walaalaheen, dadkii dhinteen, dadkii baaba'een, dadkii soo qaxeen, dadkii badaha mataqaana ku shahiideen, dadkii guryahooda gardaro looga soo bixiyay. I want to be the first. Soomaali waxay u baahan tahay dib u heshiisiin. Can I start that trend? Can we do hashtags? Can we do something? Can we do videos? Can we do challenge? Can we challenge each other? Can we forgive each other? Can we do better for the new year? Can we become better? maxaa la dhahaa walaalkay meesha soo gal wuxuu dhahay fiiva burco Hargeyso Xamar Boosaaso Puntland maxaa la dhahaa Kismaayo Baydhabo, everywhere is Somali degan tahay. We have a beautiful country full of natural resources, full of diversity. Can we start to celebrate that instead of maalin walba qof markuu hadlo traumada nagu kicinay? Can we heal from that? Can we forgive each other? Can we do better walaalahay? Can I challenge you? Ma idinku baaqi karnaa afis iyo wanaag iyo mataqaanaa aabayaashii hooyooyinka ma heshiin karaan? Even the exes miscafin karaan. Yeah? Can you forgive your ex? Can you forgive your ilmahaaga aabahood? Can you forgive ilmahaada hooyadood? Can we forgive? Can we do better? Can we heal? For 2020 ma ka dhigi karnaa sanadkii Soomaaliya ay soo kabsanaysay? Can we do programs? Walaalayaal, challenge-ga idinka iyo mas'uuliyadda each and every one of you. DJ Antonia ku jiro. DJ Antonia, I saw your video. MashaAllah, walaalkay khayr Allah ku siiyo. Dadka fanaaniinta waxay haystaan very powerful platform. Can they use it in a positive manner?
ya showyaal oo heel Soomaali ma la samayn karaa dadka producerska maxay ahayd kaaf iyo kala dheer Soomaali badanaa samaysato ma lagu soo dari karaa maxaa la dhahaa segments oo mataqaana dagaalka Soomaali iyo healingki ka hadlay. Can we heal our people? Can we do our part? And I wanna add my voice. Everybody video so duubo waan is cafinay ani waa idin cafiyay fadlan is cafiya waa idin bari is cafiya dagaal kala meel adduunyada meel walbo dagaal nooga socda. We don't need annaka inaan dagaalno annaka ilaahay marka annaka is cafino oo is garabsano oo isku faraxno oo celebrate gareyno, you know, then ilaahay will give us more peace, more prosperity, more mataqana deganaansho barwaaqo. ruuxa lagu leeyahay qofka xitaa haduu gaal uu yahay ya haday justice ka garab ay istaagto ilaahay nabadu siina. This is what's happening wadamadan joogno. We need justice ka, we need xaquuqda, we need sharafta, we need kalgaceelka, we need maxaa lahaa horumarka, you know. Somalia, whether it's a federal system, whether Somaliland ay rabto inay go'do inay joogto, it's their choice. qofka walaalkana waxa waay waxa choicekiisa waa inaad ku sharaftaa. aniga choicekiina waa idin ku sharfaya waan idin jecelahay. I love my Somali people, I love Djiboutian people, I love each and every one of us. I love humanity, and that's what I'm teaching my children. Walaalayaal, can we teach our children? Can we stop with the hate? Can we stop our teenagers markay jaamacadaha tagaan oo hadda ajnabiga baranayo dhahay Somalilander ma tahay mise Somali, and they know there's a rift between us, you know, and it's okay. Can we misraali gelin karnaa mise cafin karnaa odayaal dhaqameedka ma ka shaqayn karaan wadaadada ma ka shaqayn karaan is cafis ani ma fidin kara gogoshaas virtual gogol ayaa maanta idin fidii Soomaaliye ma li jiray maxay hadalka li jiray raali gelin oo ka soo bilaawtay 30 sano ka hor. ana idin gogol Rooda Cali Sheekh waxay gogol u fidisay Soomaaliya oo dhan inta xanuunka gaaray ya virtual gogol ya ma idin fidin karaa mis afin karnaa mis walaashan karnaa ya. Can we support waxaan rabno ya. Can we support walaalaheen Somalilander xorriyadooda ma siin karnaa maybe like they did before maxaa la dhahaa in xorriyadii kor iyaga calanka noo keenan again inay soo celiyaan. walaal hatred iyo maquunis iyo xoog ma la iskula joogo. waxaa la iskula joogaa jecel iyo mataqaana is afin is walaaleyn. Can we do that? Can we acknowledge their pain? Can we acknowledge maxaa la reer Puntland painkoodii? Can we acknowledge raxaweenka painkoodii? dadkan ma dhibaanka la dhahay intaasoo sano intay Soomaali jirtay xanuunkoodii ma acknowledge gareyn karnaa oo iyaga afis ma weydiisan karnaa horta iyaga koow ma ka dhigi karnaa mis afin karnaa gogosha mal aqbala Soomaaliye oo wanaaga sanad cusub soo socda. walaalayaal wallahi hadaan isjeclaan ilaahay ma jeclaana hadaan is afinin ilaahay ma cafinayo. waan idin bariyaa hal is afiyo hal is jeclaado hal is support gareeyo hatredka halaga dhalinyarada hal celiyo dadka qofka walaalka waa Islamic duty ana wada saaran qofka markuu qaldamo hal celiyo. dhalinyarada hadda naceebka bilaabeen Somaliland iyo Soomaaliya ma u baahnin. We don't need that yeah. What we need walaaltinimo iyo love iyo respect iyo kala dambeyn iyo isku damqasho iyo isku tacsiyeyn. aniga waxaan u tacsiyeynaa qof allaala qofkii dhaawac qabiil soo gaaray oo dadkoodii laga dilay ilaahay u wada naxariisto. qof allaala qofkii la gumaaday ilaahay mataqaana qalbada ha uu qaboojiyo. and I apologize because that's qof Soomaaliyan ahay aniga hooyan ahay. I apologize for your pain. I apologize qofka walaalkay Soomaaliga qofka kale u dilay isaga apology u sameynaya aniga raali gareynayo intii aan ka helayno dawlad dadkan la xisaabtanto ya.
marka walaalayaal videogan faafiya, walaalo wanaaga faafiya, walaalayaal few individuals oo mataqaanaa particular interests haystaan yaan la fiirin ummad maxaa la dhahaa maslaxada guud ha la fiiriyo, ilaahay ha la fiiriyo. islaan aan nahnay, our basiskeena always waa islaamnimada, islaamkan uu isku naxaa, soomaalina wallaahi oo billahi waa dad isjecel. just waxa waaye maadaama trauma badan aan nagu soo dhacday and we get triggered easily, which is understandable walaalayaal. marka triggerka inaanan aysan naga xoog badanin oo mataqaanaa aan iscelino, aan isceshano, aan isjeclaano, aan issupport garayno, aan isku ogolaano our existence, our freedom of choice. maxaa anakoo muslim ah wadamo gaale intaan joognaan free ku noolnaa walaalayaal. maxaa rabtaa qof Somaliland inaad xoog iyo majuujis a lugta uga dhigtid? adigana maxaa rabtaa qof walaalka waxba kaa galabsanin inaad xasidid aad ku jeejeestid? it doesn't serve anyone. marka I love all of you. I send love, I send healing. ilaahay hana wada caafimaad siiyo, ilaahay qalbada hanoo duceeyo, aan isku soono, aan iscafino walaalayaal. 100 qof oo iga maskax fiican joogto, ama challenge ama a period of time aan wax Soomaali u sameeyno, aan sameeyno si wadankeena mataqaanaa meeshuu joogo iyo dadkeena meel kasii wanaagsan ay gaaraan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.